واتهاي مركنا إن وحي لتاجن قدوميها هيئة علماء البيان قبل كويستن كيب شيخ محمود أذر إن شيخ محمود إن بل شلي مقالة مقدشو وحكد عدد أدو فلحون أو يجستين كوحهم أرحلنا وياله أو ماركتا إن شيء إن ماركتا أي دلين ضد الشعب أو مسلمين أو مركزي صلاة الجمعة دكاني هذا يكون دعونيين إن ماركتا أي كل عباديستين طبعا إن أرنتانو كله إن مركز أركتين إن درين أهان محد ماركتا درينتين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد runtii fal naxdin leh oo arxan darro ah ayuu ahaa ugu horeyn dadkii meesha ku dhintay ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan weydiinaynaa inuu naxariisto inta dhaawacantayna waxaan ilaahay uga baryaynaa caafimaad degdeg ah inta kadib ahladii ay dadka ka baxeen dhintayna ilaahay subxaanahu wa ta'ala sabri iimaan ha ka siiyo runtii dhacdada noocaasi ah dadka ka dambeeyay waxay ku tusaysaa ilaa xadka ay ka faqriyeen diin iyo akhlaaq iyo siyaasad intaba maxaa yeelay dilka dadka noocaasa iyo inta meesha ku jirtay kulligood xataa haday wada dhiban lahayd wax natiijo u soo hormar lahayd oo guul oo ay gaari lahaayeen ma jirin dad badan oo horena waa la dilay waxba laguma gaarin kuwa kale dambe hadii la dilana waxba laguma gaari doono waa qayb kamid ah dulmiga iyo dhibaatada ummadda Soomaaliyeed runtii lagu hayo waxaan dhihi lahaa arrinka noocaasi waxba laguma gaaro horena waa loo tijaabiyay dilka siyaasiyiinta dadka wax qora saxafiyiinta aqoon-yahanka kale haweenka arrinta noocaasi runtii waa dad ka xirfad yeeshay dilka kaliya dhalinyarada Soomaaliyeed marka waxaan ugu baaqi lahaa afkaarta noocaas ah lagu cabeeyay in ilaahay dartii oo loo dhinto ay ka horeyso inaad barato sida ilaahay dartii loogu noolaado ilaahay dartii oo loo noolaado qofku markuu barto ayaa si sax ah uu ilaahay dartiina ugu dhiman kara laakiin qof aan aqoon sida alla dartii loogu noolaado alla dartii loo dhinto waxba ma keeni karo waxba kuma keeni karo nabiga sallallahu alayhi wasallam baa la weydiiyay dadka ayaa ugu khayr badan ayu naas khayru ya rasuulallah wuxuu yiri man taala umruhu wa hasana amaluhu qofka cimrigiisuna dheeraado amalkiisuna wanaagsanaado taa macnaheedu ma aha inaan alla dartii loo dhiman karin ama islaamka aanay kamid ahayn way kamid tahay laakiin alla dartii si sax ah in loogu dhinto way dad muslima dad muxuu ahaa aan waxba galabsanin dad dambi ay galeen oo maxkamad sharciyi ay xukuntay ay ku soo taagtay dilka qadriga khiyaanada ah noocaas oo kale aan islaamku ma qabo macallimiinta jaamicaadka madaarista kuwa quraanka iskuulada khutabada dadka culimada ah warbaahinta waxaan ugu baaqi lahaa runtii afkaarta noocaasiya in laga hortago dhalinyarada Soomaaliyeedna yaani kaliya ma aha si xoog ah oo quwad ah kaliya afkaaraha noocaas loogama hortagi karo wacyigelin in looga hortago dadka manhajkooda la saxo dadka fikirkooda la saxo cadaaladda qayb ay ka tahay la dagaalanka dadka noocaasiya oo si sax oo cadaalad ah ummadda aan la camimin isku nooc bay yihiin isku midab bay yihiin waa loo maleeyay aan dadka lagu qabsanin cadaaladda lafteeda waa qayb ka hortagi karta dulmiga marka waxaan ugu baaqi lahaa ummadda Soomaaliyeed inay ka digtoonaato dhinaca uga soo wada jeedsato falal dambiyeedyada noocaas oo kale taa oo tusinaya arxan laawayaasha iyo dadka dad qalatada ah daa'iman ay kula kacayaan bulshada ku dhaxgabadaan sida daraadeed marka waa kalluunku biyo u baahan yahay iyagu bulshada u baahan yihiin bulshadu inay ogaato in dhadheerna u lahaato muxuu ahaa dadka noocaas ku dhax dhuumaalaysanaya ee khiyaanada wada ee dadkoodii baabi'inaya watahay in طبعا عدد شلي دعدو كله إن وحكو جري رجل ودلي دد ماركتا إن حتى قيب كها في دين الإسلام كا إن دعدوني كانوا كل مركز يكتو إن أو يجيسنا ين كحولي بشجرة دين الإسلام كا إن سلم كل هاي إن في دين الإسلام كماركتا مركز لا يجو إن دعدوني نوع عن أما كوح نوع عن كلا أي جيران أو فلان نوع عن كلا أي سمينا ين أو دين تكو جنبان كران runtii wax cusub ma aha wax weligeed soo jiray weeye waa wax kutubta shariicada islaamka si fiican u cadaysay wax culimadu daa'iman ka hadasho maxaa yeelay aa'imadii ugu caansanaa muslimiinta muxuu ahaa saxaabadii rasuulka yaa qaybo badan oo kamid ah lagu dilay sida noocaasiya oo dadka noocaas ee afkaarta noocaas xambaarsan ay dileen oo Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu uu kamid yahay saxaabo fara badan oo kale ay kamid yihiin qarni kastana way soo baxaan dad xaq jir ah oo runtii u fahmay diinta si qaloocan oo fahamku iska daba maray way badan yihiin laakiin daa'iman dadka mu'tadilka ah dadka sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam sida fiican ugu socda dadka cadaynta xaq aan ka cabsanin
haddii xataa la jihaadayo hoggaanka muslimiinta weligeed waxaa ahaan jiray dad yaqaana fiqiga jihaadka cidda la dilaya ciddaan la dili karin goorta la dagaalamaya goortaan la dagaalami karin qofka dhiiggiisu bannaan yahay qofkaan bannaanayn aqoon badan bay u lahaan jireen oo dadka waa loo bayaanin jiray laakiin xadgudubyada noocana daa'iman way dhici jireen wayna dhacayaan wayna dhici doonaan laakiin wadajir iyo midnimo ayaa looga hortegi karaa iyo cilmi saxiix ah marka culumadoo kale sida saxda ah arrimahan oo kale markay dhacaan waxaa lagu yiqiinay maaragta in dareenno kala duwan ay ka muujiyaan iswada jirana meel uga soo jeestaan dhacdooyinkan way soo laablaabteen culummadu marka maxaa la gudboonaya islada wallahi culummadu wax hadda lagu eedeeyo door lagu eedeeyo kuma laha meeshan maxaa yeelay waa caddeeyeen waa ka hadleen waa bayaaniyeen haddaanay ahaan lahaynna kooxaha noocaasoo dadka ku dhexgabado magaca diinta iyo shaatiga diinta qaba shacbiyad inta ka badan bay lahaan lahaayeen waxaa ka reebay waa culummada waxa dadka xaq u caddeeyey waa culummada waxay ku talagaleen inay noqdaan dadka diin ahaan dadka u matala dadka ummadda culummada u ah xaqa keliya dadka iyaga laga qaatay inuu yahay waa ku talagaleen laakiin culummadu way kala reebtay wayna ka qaaday muxuu ahaa sharciyaddii ay lahaayeen diineed dadkuna way fahmeen dadka ugu horeeya oo dhibanayaasha oo dhibaatadu ka soo gaadhayna culummada ka mid ah waa ogtihiin culummo waaweyn oo Soomaaliyeed oo aad u badan baa la laayay maalin kasta lagu dilaa way ka mid yihiin labadii caalim ee waaweynaa garanaysaan Puntland Dr. Axmed Xaaji Cabdiraxmaan iyo Sheekh Cabdulqaadir Nuur Faarax culummo badan oo kala la laayay aad u badan runtii mas'uuliyiin siyaasiyiin haween ururada bulshada saxafiyiin aad baa ummadda Soomaaliyeed oo dhan cadow ugu socda marka ummadda Soomaaliyeed cadowgeeda waa inay garato meel uga soo jeedsadaan waa tahay markana waxaa ila taagan gudoomiyaha jaaliyadda Safe Somali Community ee dalkan Koonfur Afrika mudane Yuusuf Cumar Axmed Yuusuf dhacdadii shalay ka dhacday magaalada Muqdisho gaar ahaan hotelka Central waxay dhacdo maaragta ay geysteen kooxaha arxaan laawayaal ah oo ay ku laayeen dad mas'uuliyiin iyo dad shacab ah dhacdadaasi jaaliyad ahaan saameyn intee leeyahay bismillaah alxamdulillaah runtii arrintaas waxaad moodaa inay tahay arrin aan wanaagsanayn sababtoo ah waxaad dareemi kartaa dad mas'uuliyiin ah oo mas'uuliyadu ay ka saaran tahay dalka iyo dadka in si siman loogu laayay tirada hadda na soo gaarayo ilaa 25 qofood inay gaarayso 25kaas qofood oo ah dad mas'uuliyiin ah oo meel lagu cibaadeysanayay lagu waxyeeleeyo runtii waxaa la dhihi karaa waa sawir aad iyo aad u khaldan oo aan u wanaagsanayn caqiida ahaan iyo bini aadan ahaanba marka waa arrin laga xanuunsado marka community ahaan waxyaabahaas markay dhacaan oo kale intood waxaa ka imaanayso feedback ah war maxaad sidee xataa waxay u badan tahay Soomaalinimada inay dhaawac ku yeelato marka caqiida ahaanna ma wanaagsano qoomiyad ahaanna wax aad u wanaagsan ma ahan marka qof kastoo bini aadan ah dadku waa axsaab waa rixin iyo qaraabu marka had iyo jeer si dadban iyo si aan dadbanaynba saameyn u yeelanaysa marka dhacdadan markaad eegto dadka geysanaya waxay sheeganayeen qaab diiniyana inay u geysanayeen dadka hadana ay laayeen waxay cadad mas'uuliyiin oo maaragta qaarkood xitaa ku jira diinta islaamka qayb ka qaatay fidinteeda waxaan lagu laayay waxay ayagoo masaajid ku jira bal markaad eegto dhacdadaas oo kale misleedahay dadka noocaas waxay u dagaalamayaan qaab diiniyana والله runtii arrinkaas ma ahan arrin u wanaagsan caqiida ahaan waayo qofka cibaadeysanayso in iyadoo meesha Ilaahay ay ku caabudayso ay taagan lagu dilo ee la yiraaho macnaha cibaada ahaan ayaan u dilnay runtii ma u malaynayo inay salka ku hayso diin ahaan والله waa su'aasha dacwadaas ka dhacday aad u qol oo qof kasta Soomaali ah qalbigiisa ku shay إلى الدنيا وحيارة ما أمريكا يكون إلى الدنيا هي وطن كورة يعني وحقبتها ما يكون وعيا أقول رسول حتى يقار كلام تروح فيها بدون وطن جورين وأنا كنت بيت وطن كورة راجل شقيان مخوين مخويا خيارة وأهل ما تقول أنا هي شيء والدنيا حاضرة حاليا إنا لله وإنا إليه راجعون ويسسك يكتبين إلى يسوي إنه نفسي أنا قاعد نمانتين إلى أنه يسوي كان سمع حتى بشيء كود كرنا أكمل راحة لما نيمان أكثر الله أنا
sida argagixisada loo dilaayo ujeedada dambiilayaasha ka leeyihiin waxaa ugu horeysa inay dadka niyad jibiyaan dowladda Soomaaliyeed mar kasta oo dhibaato kasta gaarsiinayo dambiilayaasha ka duulayaan ujeedka ugu weyn in dadka niyad jibiyo inay noloshooda qabsadaan dadkooda iyo dalkooda u shaqeeyaan taasaa bandhig u ah taas waxaan rajaynayaa insha allah oo ilaahay inuu ku guuleysan doono maxaa yeelay dhibaatooyin noocaan hore u geystay wax hadda isbedelan ma dhicina kulley insha allah baa la socday marka waxaan rajaynayaa in ilaahay dadka ummadda u adeegaayo siyaaqa dowladda ugu horeeyaan oo ilaahay ku hormoonka waxgaradka Soomaaliyeed iyo shacabka caadiga ah iyo cid kasta ay ka mid tahay in aan loo niyad jibin oo maxay tahay dadka iyo dalka Soomaaliyeed sidoo loo adeegayo hore un loo wado qof kastaba maalinkeeda ka dhimanaysa marka dhimashada waa inaysan noqon inaad insha allah